barnaamijkii fagaaraha qaybtiisii 11aad ayaa waxaa lagu qabtay gobolka Ohio magaalada Columbus jaamacadda ku taala iyadoo barnaamijkani lagu eegayay sidii ummadda Soomaaliyeed ay ku heli karto dib u heshiisiin qaran. barnaamijkan ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Maxamuud Culus oo ahaa gudoomiyihii hore ee Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, iyo Faqi Saciid Faqi oo ah isimada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Ohio. barnaamijkan ayaa waxaa looga hadlayay sidii Soomaalida dib u heshiisiin qaran loogu sameyn lahaa. barnaamijkan oo barnaamij aalaaba lagu qabto dalka Mareykanka dhawaana lagu qabtay magaala madaxda dalka Soomaaliya ayaa waxaa soo qabqaabiya Sadiiq Warfaa. in ka badan ayaa waxaan ku jirnay dagaalkaas sokeeye oo keenay burbur xag macnaha private property iyo public property ina dhibkaas ayaa dhacay, dhib weyn ummadda Soomaaliyeed kala gaaray. kadib ummadda Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliya, international community-ga waxay aad iyo aad isugu dayeen in xalka Soomaaliya xal loo gaaro. waxa waa qabsanay laakiin sidii la rabay uma dhicin. marka maanta barnaamijkan waxaan leenahay can we have a frank discussion si daacadnimo ah oo qalbi nadiif ah maga wada hadli karnaa inaan gaaro dib u heshiisiin qaran ah annagoo og wixii dhacay laakiin aan taariikhda ka barano as wadanka ma taqaanaa oo moving forward yahay. marka walihi ku meel gaarka ahaa iyo dowladda hadda jirta naftigeeda oo aan aaminsanahay inay ka gaabiyeen kulligood dib u heshiisiinta markay tahay waxay u qaateen in la yiri waxaa tihiin dowlad wax maamulaysa kaliya, laakiin ma aysan fahmin in loo soo doortay inay noqdaan dowladdii dib u heshiisiinta ka shaqeyn lahayd shacabka, dadka isu carooxo, dadka wax isu qaba oo waalaha ah inay ka shaqeyso. marka waxaan aaminsanahay in dowladahaas kulligood ay ka gaabiyeen hawshaas oo loo baahnaa in ay ka fekeraan hawshaan meeshay ka bilaabi lahaayeen. ma sidaha la sameeyey culummadu waxa weeye dib u heshiisiinta waxaa ka horeeya laba tilaabo, waxa la yiraahdo xabad joojin ama iyo xalil khilaaf. labadaas waxaa loo kala bixiyay luqadda Ingiriiska oo hadda waxa weeye conflict settlement iyo conflict resolution. waxay ka horeeyaan waxa weeye wax la yiraahdo muxuu ahay dib u heshiisiinta. kuwaas marka maxay noo fasirayaan? kuwaas waxa weeye horta marka u horeysa dad dagaal uu jiro dagaalkii la joojiyaa. horta marka la heshiisiinayo waa in la helaa victim iyo perpetrators waa inuu jiraa markasta. isimada ah, akhyaarta ah, indheergaradka ah, siyaasiyiinta kale waa inaan nahay bulsho marka ugu horeysa dhibka ku dhacay garatay. waa inaan haddana dhihi karnaa inay tan nagu socoto xaq maaha. waa inaan dhihi karnaa waa inaan joojinaa taa maslaxadda. haddaan anigu garan waayo, ninka walaalkay ee geeska dambe Soomaaliya ka degay hadduu garan waayo, ka dhexe uu garan waayo, waxay noqonaysaa hadday isuma taliso waa laydin talin. tiimin wadadii lagu gaari lahaa dib u heshiisiin dhab ah. Zakariya Aadan, Universal TV, Columbus, Ohio.